dadaal dheer oo qaatay muddo 16 saacadood ah kadib waxaa lagu guuleystay in daamka weyn ee Gabiley laga soo saaro meydka wiil dhalinyaro ahaa oo ka tirsanaa ciidanka dabdamiska Somaliland kaas oo shalay ku dhacay daamkaas gurmad badan oo isugu tagay halkaasi kadib maanta xilli hore ayaa meydka marxuumka lagu magacaabi jiray Caydruus Sheekh Cumar la soo saaray waxaana mas'uuliyiin ka hadlay dhacdadaani ay tacsi kadib sheegeen in galabnimada maanta oo salaasaha la aasi doono meydka marxuumka إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت runtii halka waxaan tacsi tiiraaya looga diranaa qoyska iyo ehelka ciidamada dabdamiska bahda ciyaartooyga shacabweynaha reer Gabiley dhammaan shacabweynaha reer Somaliland geerida naxdinta leh ee ku timid marxuum Caydruus Sheekh Cumar Basiiri oo shalay toole ku dhacay dhaamka ilaa saakana aynu baadidoon ugu jirnay si aynu meydkiisa u heli lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa 6dii iyo barhkii saaka ayuu inagu guuleeyey in meydka marxuumka la soo saaro oo la helo ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto guud ahaanna samiriye iimaan ha inaga siiyo waxaanu jecelahay runtii maamul ahaan inaan aad iyo aad ugu mahad celinno cid kasta oo shalay markay dhacdadaasi dhacday ilaa iyo saacadda imika dadaal ugu jirtay sidii loo heli lahaa meydka marxuumka oo ay koow ka yihiin ciidamada kala duwan ciidanka dabdamiska ee uu ka tirsanaa oo markiiba soo gurmaday ciidamada qaranka iyo booliska ee gobolka sidoo kale buusayaasha aanu runtii gurmadka u dirannay ee ka kala yimiday degmooyinka Saylac iyo Berbera waanu aad iyo aad ugu mahad celinay iyagana ilaahay ku asturay inay soo qabtaan waxaanu jecelahay inaan u mahad celinno qaybaha kala duwan ciidanka badda ciidanka dabdamiska iyo maareeyaha dekedda Berbera saddexdaa dhinacba waxay iska kaashadeen runtii ciidanka quusayay ee gurmadka ugu yimiday magaalada Berbera iyo sidoo kale barasaabka gobolka Selal Mawlid oo soo tabaabusheeyay ciidanka iyaguna quusayaasha magaalada Saylac ka yimi oo xalay oo dhanba runtii safar soo ahaa aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro sidaa intaa waxa dheer in marxuumka la aasi doono 3 galabnimo ama maanta bacda casar insha Allah tacaala lagu tukan doono miskiin jaamaca oo ay shacabkuna saa ku tala galaan ilaahay dee samiriye iimaan jabiilaha inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii sarkaalka ciidanka dowladda ka geeriyooday waxaan mar labaad tacsi u dirayaa ciidamada dhan siiba gaar ahaan ciidanka dabdamiska qaranka meel kasta ay joogaan oo daafaha Somaliland oo jooga kii soo gaadhay waayay kii jooga tacsi tireelaya u dirayaa marxuumkaana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qoyskiisii iyo qaraabadii ehelka dhammaan uu samiriye iimaan inaga siiyo sida maayirku sheegay 3 galno la aasi doonaa mis jaamaca laga dukan doonaa salaada casar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraanyale halkan ugu darayaa qoyska reer Cumar Sheekh Ibraahim Sheekh Cumar Basiiri ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan reer Somaliland geerida ku timid Caydruus Sheekh Cumar oo ku dhacay daamka maxay ahayd magaalada Gabiley ganaaye saakana meydkiisii soo saarayna aad baan ugu mahad celinayaa Allah ka jazaaysiiyo gobolka barasaabka mayorka iyo wasiirka oo ilaa xalay aan ka seexanba iyo xildhibaankaba iyagana waxa weeyaan aad baan ilaahay ka jazaaysiiyo dhamaanteen biyo dadka dhanba intii ka hawlgashayba waxa halkan maanta u joognaa inaan tacsi dirno ehelkii gaar ahaan waalidkii Caydruus Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim Basiiri oo shalay uu liqay dhaamka degmada Gabiley ku yaala nin dhalinyaro ahaa xubin firfircoon oo ka mid ciidanka dabdamiska ahaa qadarkiisii baa keenay inuu dhaamka ku dhaco sheekho ahludiina oo runtii aad iyo aad u muujiyay inuu qadarka Ilaahay ku kalsoon yahay oo wax badan nafdeeyay baan tacsi gaar ah diyaar halkii kale oo dhan leena Ilaahay haydinka cawad wanaagsan ka siiyo واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan
$10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.